imikana falaqayntii iyo maxamed axmed deysane goordhow markaan barnaamijka soo galaynay waxaa lagu dhawaaqay isku aadkii wadamadii aan hore u soo bixin ee sirraabka koobka adduunka bal maxaa ugu cusub ugu dambeeyay sida aan la soconno Yurub 13 koox ayay lahayd 10 kamida way soo baxday 6 ayaa hartay 6daasoo la isku aadiyay laakiin waxaa u malaysaa weelashka in Austria ay la ciyaareysay Scotland iyo Ukraine ay la ciyaari doonto Russia iyo Poland ay la ciyaareyso Sweden iyo Czech Republic ay la ciyaareyso Portugal iyo Turkiga ay wada ciyaari doonaan Italy ay la ciyaareyso North Macedonia laakiin dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay Turkiga iyo wadanka Portugal oo tii soo baxda la ciyaari doonto Italy iyo North Macedonia waxaan la soconaa Italy 2018 caariga adduunka Russia lagu qabtay inay ka hartay kadib Mancini oo la wareegay kooxda uu soo qaabeeyay oo ay qaadeen koobkii Yurub ee lagu qabtay wadankan Ingiriiska Portugalna waxaan la soconaa sanad ka horeeyay ayadan inay qaaday oo Ronaldo ku jira labada dhinacba Ronaldo inuu ka haro qadar waa wax ciyaaraha aan fiicneen Mancini iyo kooxdiisii oo Yurub qaadana inay ka harto ayadana waa wax aan u fiicneen marka meeshaas dib weyn ayaa ka taagan hawl weyn ba ka taagan hagaag aan ku soo laabano Premier League iyo ciyaaraha toddobaadkan Chelsea Stamford Bridge ku qaabilaysa Man United oo xaaladdu ay galab ka tahay bal ciyaartaas maxaa isha si gaar ah loogu hayaa sida aan la soconay Chelsea hoggaanka horyaalka ayada hayso waxaan u malaysaa in ay yihiin kooxda xag difaaca aad ugu fiican oo Chelsea sida aan la socono 2 gool wili lagama dhalin City kaliya ayaa ka adkaatay hal Every ugu adkaatay xagga dhalinta inkastoo 30 dhalis oo Liverpool 35 ay dhalisay laakiin waxay ugu fiican tahay xagga difaaca oo ayagu 4 gool kaliya ayaa laga dhaliyay kooxdan Chelsea waxaana ognahay in ciyaartooygeedii weynaa ee 90 milyan ay ka soo bixiyeen Lukaku asigoona ciyaareen inay guulo wili gaarayaan marka Chelsea waxa u malaysaa sanadka hore inay ka xogantaa sida uu yimid Tuchel baa soo hadal qaaday waxaan ogeyn ciyaartii Champions League in si xun loo galay kooxdii hore u maamuli jiray PSG Chelsea waa kan la walaynaya oo Champions League la qaaday muxuu soo kordhiyay ninkan sida aan la socono horta waa taa soo afqaada PSG waxaa jooga ciyaartooy badan oo superstars leeyahay ciyaartii Champions League waxaan la soconaa in City ay si xun u awood u sheegatay taasna waxay ahayd Neymar iyo Messi iyo Mbappe oo aan soo naqanaynin oo inta badan markii City ay weerarka galayso ay inay soo naqan waxba ay raacin Cityna difaacoodii weerarkooda ay hore iyo gadaal ay u socdeen taas ayaa keentay marka Tuchel raggaas magac leh ayaa ciyaartooyda magac leh runtii macallimiinta qaar ma amri karaan sidii dhalinyarada kale wax u rabo uma fuliyaan karaan laakiin wuxuu haystaa dhalinyaro yar ay Chelsea u joogto warkiisa yeelay oo maqlay oo wuxuu dhayeelay laakiin xagga way ka duuneed oo raggaas Mbappe World Cup oo qaaday Neymar waa la soconaa superstar way Messi waa ninkan ogno Barcelona wuxuu dhigi jiray marka rag oo Tuchel sidii Chelsea oo kale oo la dhaqmi karay ma way Man United waxa lagu wada in loo magacaabo Ralf Rangnick ninkan muxuu ka bedeli karaa kooxdan aad ogtahay isku dhax qasantahay xaaladeedu sida aan la soconaa ninkan saa hore u soo sheegtaba ninkan waa nin ku ciyaaraha waxa la dhaho high pressing afkoor dadka lagu raaco ayuu aad u sameeyaa waana nin shaqo walba oo soo baxdo aad loo raadinayo ayuu ahay waxaana qabaa 6 bil oo joogo inuu arintaas oo u sii gogol xaari doono oo kooxda bari doono systemkan aysan muddo ku dheelin oo afkoor in wax lagu raaco oo kubadana dhaqso weerarka loo geliyo taasna waxaa u malaysaa inay jidku u sii xaari doonto Pochettino hadduu yimaado Pochettino waxaan la soconaa nidaamkaas inuu ku dheelo oo xilligii Tottenham uu joogay saas inuu ku socdo afkoor oo wax ku qaban jira taasoo ay guulal badan ku gaareen club oo Liverpool iyo City oo hadda laga yaabay oo koox walba ay u tagto ay afkoor ku qabatay ay cadaadiso marka waxaan qabaa inuu yahay nin ku haboon inuu Man United yimaado wadadaasna uu sii xaaro jidkaas ciyaaraha waxa modern kubadda cagta la dhaho waa in afkoor kooxda ku qabata ku cadcadaadaysa u diidaa inay ku soo weeraraan si kooban Arsenal iyo Newcastle maxaan ka filan karnaa Britole Arsenal Newcastle aniga waxaan qabaa in kastoo Arsenal ciyaartii Liverpool ay guul darre xoog leh ay kala tagtay taasoo ahayd markii afkoor lagu qabto kubada ay qaldaan oo goolkii labaad ay gacanta u saareen Jota oo goolkaas ka dhali ma u maleynay Newcastle sida Liverpool oo kale inay Arsenal afkoor ay ku qaban karto marka waxaan qabaa Arsenal meeshaas inay guulka keeni karto Newcastle iyo Liverpool waa la soconaa isku tayana maaha isku ciyaartooyna maaha marka Arsenal waxaan qabaa guul daradii gaartay inay ka soo kabsan doonto